inti wacan oo wanaagsan daawadayaalka aad naga daawanaysaan waa bartiini baahinta wararka fadlan hadii ay tahay markii kuugu horeysay saad noo ka barto waxaan ka codsan inaad subscribe saartid sidoo kale kambalka furatid saad la socoto fiidiyoda aan soo gelino maalin kasta ama maalin dhaaf kolba sida waqtigu noo saamaxo waxaad wada ogdeydeen ama la isla dhexmarayaa magaalada caasimadda ee Somaliland magaalada caasimadda waa Hargeysa in uu ka furan yahay ama horeba looga furay school lagu dhigo mawaad aan ahayn mawaadii islaamka ama mawaad ahayn mawaadan caadiga sida Christianity Bible-ki lagu dhigayo schoolka markii aan tixraanay ama dabagalnay maadaama ay bahda dabagalka wararka waxa uu noqday schoolka Young Muslims leeyahay ee ku yaala magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Jigjigeer schoolka ayaa waxa lagu dhigaa مواد كريستيان ama diin aan ahayn diinta islaamka oo diinta kristanka ah waxaana dhiga ragaala ama rag masiixiyiin ah oo Kenyaati ah iskuulka waxa laga leeyahay dalkaasi Kenya isla markaana waxa uu dhigaa mawaad ahayn mawaada diinta islaamka ayno jireysayeen caruurteena ku ababino ama aynu u dhigno dhamaan caruurteena iskuulkan ayaa waxa hadda la xiray digreete ka soo baxday wasiirka wasaaradda waxbarashada Somaliland Axmed Torno ayaa waxa uu digreeto soo saaray ku xiray iskuulkan ayaa hadda la xiray dadna waxa la eriyay dadkii ama gaaladii ama raggii masiixiyiinta ahaa ee iskuulka dhigayay dalka waa laga saaray iyagoo lagu celiyay dalkoodii hore ee ka yimaadeen ee asalka u ahaa oo Kenya ah daawadaya hadaba saad la socotaan fiidiyoda kale aan soo gelin doono mararka soo socda waxaan idin ka codsanayaa inaad subscribe saartid fiidiyogan oo channelkan sidoo kale fiidiyoga like saartid saad la socoto fiidiyoda aan soo gelin doono insha Allah anagoo idin ku adkeynaa inaad channelka subscribe saartid maadaama ay tahay markii kuugu horeysay soo booqato channelka. Assalaamu calaykum.